dhammaan dadka ka soo qayb galay munaasabadan qiimaha leh ee caawa aynu isugu nimid waa fiidnimo sabti ah 30ka bisha May sanadka 2015 ama 2015 waxaan joognaa munaasabad qaali ah oo aan ku soo dhaweynayno wakiil shacab waa xildhibaan Cabdi Barre oo aad wada garanaysaan isla markaana kamid ah xildhibaanada kuwooda ugu hadalka adag ama ugu markaasi dhiiran marka ay noqoto soo bandhigida waxyaabaha uu aaminsan yahay munaasabada ayaan furanaynaa waxaan markaasi u yeerayaa mid kamid ah culimada ku nool magaalada Columbus mar hadii aynu nahay ummad islaam ah markaan isu imaano waxa wanaagsan in qowlka eebe aynu ku xusno hadba goobtii aan isugu tagno markan waxaan u yeerayaa Sheikh Ahmed Dheere oo isagu markaasi aan filayo in aayadaha Quraanka Kariimka iyo kelmadda kaga aadan oo halkan markaasi ka soo jeediyo ila soo dhaweey sheekha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم marka xiga waxaan soo dhaweynayaa Cali Jaamac oo ah gudoomiyaha ururka Somali American Leadership Council oo iyagu soo qaban qaabiyay munaasabadan ila soo dhaweey fadlan بسم الله صوماليا وحملنا بابا الله المامي سان حلمان كو حسوسنا إن ولي أنا المامين سوال نودي إن هذه بان روحان وجمع علنا هي إن dadkii soo qabanqaabiyay ama ururka Somali American Leadership Council oo soo qabanqaabiyay xafladan quruxda badan iyo inta ka soo qayb gashay oo waqtigooda qaaliga soo siisay waxaan ka rabo kale u mahad celinayaa baada saxaafadda Somali National TV Dalmar TV waxaanad ka daawan doontaan hadii ilaahay idmo xafladan dhammaan website-yada sida rajo oo kale iyo meelo badan baad ka doortaan hadii ilaahay idmo intaas kadib walaalayaal waxa caaw martino ah oo aan soo dhaweynaynaa waa taqaanin no vote for cash Cabdi Barre Yusuf Jibriil waa xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed kuwooda ugu cadcad ama kuwooda ugu sareeya markaan aragno xagga Soomaalinimada iyo ku dhiiranaanta iyo sida ka muuqata ama hadaladiisii ama socdaalkii uu ku soo kala bixiyay ilaa dhowr iyo 10 dal ee kamida caalamka sida Yurub iyo America inta wuxuu u socday inuu ummadda Soomaaliyeed uga warbixiyo wixii ka jiray magaalada Muqdisho iyo wixii wadankayga ka jiray inuu maaragtay ku wacyigeliyo inaan dalkii naga maarmin oo maskaxaana la kaga maarmin aqoonna la kaga maarmin dhaqaalaha la kaga maarmin inaynu ka qayb galno dadaalka loogu jiro in la helo isbedel Soomaaliyeed oo ku dhisan cadaalad midnimo iyo sinaan arintaas oo xildhibaanku u banbaxay u wareegaya u socdaa aan soo dhaweyno waa taasi waa midda koobaad midda labaadna risaaladiisa iyo waxa uu noola imaan doono caawa uu noo sheegi doonana waxa la rabaa inaynu taageerno iskamu imaan xildhibaanku diyaarad iskama soo raacin dalxiis ma aha wuxuu rabaa inuu noo sheego wax na anfacaya oo dalkayga anfacaya oo dadkayga anfacaya wixii dalkaygu nooga baahan yahay inuu noo sheego ayuu caawa xildhibaanku noogu yimid wuxuuna idinka rajaynayaa inaad taageertaan
oo soo dhaweysaan oo aad qaadataan risaalada iyo soo jeedinta uu wado aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida sharafta leh oo aad caawa u soo dhaweynaysaan xildhibaankeena cabdibarre yuusuf jibriil waad mahadsantihiin waxaan u yeerayaa markaan inaad ila soo dhaweysaan gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus xasan cumar xasan dheere. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii waxa weeyaan waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa in ilaahay caafimaadna siiyey isuna kaaya keenay inteenan caaway waxaan ilaahay ka baryayaa in ummadda Soomaaliyeed meel joogto nabad ilaahay inuu siiyo isuna keeno runtii Soomaalidu waxay u baahan tahay waxa weeye waa duco waayo waxa weeyaan waa shiraynay waa hadlaynay laakiin wali ma arag Soomaali dhahaysa aynu ducaysano markaan waxaan dhihi lahaa way hadda laga bilaabo intaynu xoolo urursano aynu ducaysano markaynu ducaysanana aanu ilaahay barino niraano ilaahu dhibaatada inaga saar markaan barinana go'aankan qaadana aan ku socono sababtoo ah Soomaalidu waxbay tiraahdaa laakiin badana kuma dhigto oo go'aankaas kuma dhigsanaato hadal badan aan meeshan ka iraahdo runtii uma istaagin sababtoo waxa weeyaan war waxaan ka sugaynaa Cabdibarre anoo ku hadlay magaca jaaliyadda waxaan leeyahay Cabdibarre ku soo dhawow Columbus Ohio Columbus runtii waxa weeye short notice bay ahayd maanta baa anu kulli ugu horeysay imaatinkaaga inaad magaalada imaanayso oo nin odaya saaka aroortii yimid ugu yiri waxa imaanaya xildhibaankii watay bi calaamad ma aqaanaan ku inaan xildhibaano badan baa xamar jooga miyaadan xusuusnayn bi midkii watay no vote no cash marka waxaan ku yiri kaas waan aqaanaa marka ninka waa u tagayaa macnaheedu waxa weeyaan runtii waddankeena dhibaato waxa ku dhacday culus baa ku dhacday anigu ma qabo waxa ku dhacayna wax annaga kaligeen aanu geysanay ma ahan waxa inagu socdaana waxaan kaligeen wadna ma ahan American baan nahay American waynu ognahay waddankeedu inta uu leeyahay oo waddan ballaaran 100 waddan ka badan buu wuxuu ku leeyahay maalmoodii dhalinyarada baa ka sheekanay 150 waddan buu wuxuu ku leeyahay saldhig military ku leeyahay adduunka dhanna waxa uu ka qabtaa haddii marka Mareykanku uu wax nala qabanayo haddii cid kale iska dhaafay annagu American aan ka codsano wiilal yar yar oo ciyaalaho shabaab afarta geesood fadhiya magaalada waxba kama qaban waayeen runtii waxaan nasiib darro ah dhibaatada maanta ummadda Soomaaliyeed haysata in ay annagu ayna eedeynayaan oo ayna leeyihiin adinka wax ka qaban kara annagina hadda waa adiga arkayo oo lacagta la isla gees ordayo oo lacagta la bixinayo marka Cabdibarre waxaan ku amaanayaa runtii qofka wadaniga ah lacag uma gadi karto lacag kastoo la siiyo qofka muslimkaana oo fiican oo qalbiga fiicanna lacag uma gadi karto qofka iimaanka leh oo dadnimada lehna lacag uma gadi karto inta maadaama aysan lacag u gadi karin waddankaagana ma iibsan kartid waddankaaga haddaad iibsatidna ilmahaaga aad iibsanaysaa waayo niman waddan lahayn magacna male mustaqbalna male marka waxaan runtii Cabdibarre ku amaanayaa oo runtii anigu aan ku amaanayo qof ahaan inuu hawshaas diiday inuu waddanka Soomaaliyeed inuu wax ka gato runtii baarlamaanka oo ka tirsan yahay waan ognahay waddankan Mareykanka waxa xukuma madax u ah waxa weeye madaxweyne uu leeyahay wuxuu leeyahay haddana Supreme Court buu leeyahay Congress buu leeyahay baarlamaanku waa Congress weeye iyaga ayaana sharcigana sameeya sharcigana iyaga ilaaliya haddii marka baarlamaankii uusan awood u yeelan gudoomiyaheedii inuu kontrolo hadduusan awood u yeelan inuu madaxweynuhu wuxuu sameeyo ay kontrolaan haddaysan awood u yeelan waddankii inay badbaadiyaan baarlamaanku macna uu ku fadhiyaa ma jirto runtii baarlamaanku xaq wuxuu leeyahay federal government baa leeyahay runtii aan hadda ku dhiirigelnay marka fariintaasna waxaan farayaa Cabdi dadkaan nahay maqlo caawa fariintaan faraya waxa way maanta waxaan sheekaysan shaqada baan niman sheekaysanay waxay marka ii sheegeen garoonkii dheeraaya Ballidogle la dhigi jiray in dawlad la siiyay maxalli adduunka kamid ah ayaan magaceeda in la sheego oo ay la wareegayso Ballidogle waxaana bixiyay maamul goboleedyada Soomaaliya maamul goboleed kamid ah aeroboortkan aan ka duulno Port Authority waxa magacaabi kara mayorka iyo board baa loo magacaabayaa laakiin waxa iska leh federaalka iska leh oo aeroboortkan iska leh dekadaha waxa weeyaan waxa jooga wad ogtihiin boards waaweyn ba America leedahay ka mid tahay maxaa leedahay Baltimore maxaa leedahay Harbor ka mid tahay New York ka mid tahay California ka mid tahay Louisiana ka mid tahay meelaha ugu dekadaha waaweyn leh waxa maamula oo iska leh dawladda federaalka baa iska leh highway-ga leedahay
dekadahay leedahay ayraboorraday leedahay maxkamado la magacaabo oo la yiraahdo US district oo judges ah oo waxay leeyahay state-ku leeyahay oo ku dhex yaala oo haddii gobernatooraha ama cid ama justice department ay xukunto wax galaan iyagu indhayd gareynay maxkamad geynaya inaan marka ogaano weeyaan dadkeena baarlamaanka ka codsanay in dadka la baro inaysan ahayn anigu dawlad goboleed baan waa go'ay oo aeroboortkan ana iska leh anigu dawlad goboleed baan oo halkaan baan deganahay oo highway-gan ana iska leh anigu waa go'ay oo dawladdan baan ahay oo ana iska leh maxaa la baldoogle waxa lagu dhisay hantida Soomaaliyeed baa lagu dhisay magaalo kasta Kismaayo waxa lagu dhisay lacagta ummadda Soomaaliyeed baa lagu dhisay berbera oo loo diidayay shalayto oo aan condemn gareynayo ambaareynayo dadkii Soomaalida oo qaxootiga ahaa oo masaakiinta ahaa oo ka soo degayay in loo diido waxa ku yaala aeroboortka qaaradda Afrika ugu dheer waxa dhisay dawladda Soomaaliyeed baa dhistay hantida ummadda Soomaaliyeed baa lagu dhisay sida daraadeed waa in aan ogaana kulligan maskaxda gashana baarlamaankeenuna ogaada ummadda Soomaaliyeed hantida maguurtada ah way wada leedahay nina gooni uma lahan marka baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa inay taas ogaadaan dawlad goboleedyadu ma ahan macnaheedu in la kala tagay baarlamaanka markaad ku laabatana waxa tiraahdaa lacagtu in yar badan ka dhamaanaysa laakiin dhulku dhamaan ma hayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markan waxaan u yeerayaa ambassador Cabdikariim oo nala jooga caawa isagana waxa uu qayb ka yahay dadka soo dhaweynaya xildhibaanka soo dhow ambassador بسم الله الرحمن الرحيم سؤال waxay tiraa war la qabay xisaabana marka ma waqti dheer hadli maayo marka hore waxa muunaya iyo sharaf inaan soo dhaweeyo xildhibaan Cabdi Barre Maxamed Yuusuf Jibriil oo socdaal noogu yimid mudanahu hadii hore loo sheegay Xasan iyo ragii ka horeeya sheegay marka ku noqon maayo waxa uu qabtay waxaan rabaa inaan ka iraahdo marxaladda dalku marayo Soomaaliya waxa dabacad noo noqotay inaanu ka maagano runta waxay tahay sababtoo waxaan anagu isu dhiman qolana nooma dhiman waxaan ku rafanaa dawladaha dariska iyo Mareykan iyo xagga iyo futuud war annaga islaynay annaga dalkii baabiinay annaga keen ciidamada jooga waxaadna sabdarawa annagoo dawlad sheeganayna konton iyo hodho sano xor ahayd in maanta ninka madaxweynaha uu leeyahay ninka waardiyaha uu ah inuu yahay nin ajnabi ah ninka darawalka uu ah ninka waardiyaha albaabka ninka ka furay Uganda isuu maxaan marka sheegan karnaa oo sharafa jubada waa weyn baan qabnaa marka waxa loo baahan yahay waxa weeye intaan walaahowga iyo hada meel iska dhigno ummadda Soomaaliyeed waa dad qoysa qabiilku macno u leeyahay lama arko qabiil qaran ma noqon karo xaqeebtaas weey dad qabiil ah inta meel istaagaan qaran ma noqon karaan Soomaaliya waxa ay meesha ay joogtana annaga sabab ah ummadda Soomaaliyeed baa mas'uulka ah anigu qolo kale ma eedeerayo waxaan marka u baahannahay aqli baa Ilaahay nasiiyay inaan intaanu fakarno aan maxaa nagu dhacay maxaa naga lumay su'aasha muhiimka inaan ka jawaabna ay tahay war maxaan danno ah inaan isu weydiino marka yaan hadalka ku rafanayna mudanaha waxaan ku leeyahay baarlamaanka hadda jira anigu waxaan ka soo horjeedaa systemka lagu dhisay oo 4.5 ka sidaadaba manaad waxa way qaranku inuu dalku qaran noqonin way marka in la gato dhulka sida Xasan Dheeraad uu sheegay ama la bixiyo gobolada ama la bixiyo dekadaha ama dad Soomaaliyeed in loo diido inay ka soo degaan dalkoodii oo la ajnabi way waxa sababay waxa weeye falka anagu aan falay way marka waxaan ku boorinayaa baarlamaanka iyo mudanahan oo anu ma aqaan mudanaha laakiin TV-yadan ka arkay Soomaaliya wadaniga nadiif way waxaan u baahnaa rag asagoo kala ah inay meesha tag waxaan marka rabaa inaan fariin u faro baarlamaanka in electionka si loo dhigo doono ma garanayo 2016 waa in dadka Soomaaliyeed la weydiiyaa rabitaanku waa muhiim dadka hadda jooga meesha oo madaxweynuhu ka mid yahay waa la soo doortay waxa soo doortay beelo dadku beelay ka kooban yihiin laakiin waa in laga gudbaa oo loo gudbaa
one man one vote wadadku in la weydiiyo wax gobolada wax la weydiiyo way waxa muhiim ah oo laga maarmaan ah in la dhiso ciidan qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay Ugandese iyo Ethiopian iyo Kenyan iyo qolo kale qaranka kuma ilaalin karaan kuma daafici karaan marka muhiimadda ugu weyn taas marka mudana waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo xiro soo dhawow magaaladan Columbus waxay daacad u leedahay dadka odayaasha waxgaradka wadaniga inay soo dhaweyso marka waad ku sifowda arintaas soo dhawow waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya waxay u ooman tahay hoggaan wadani ah waxa naga maqan ma tiro waahina waxa naga maqan dad wadani aan u baahanay oo ka nacay dalka markaas marnaba soo dhawow Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha jirto waxaan markaan u yeerayaa Xaamud oo markaasi meel ii dhow fadhiya uma baahna inuu meel dheer soo maro ila soo dhaweeyay Xaamud aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah waa idin salaamaya marka ugu horreeya waxaan u mahad celinayaa qabanqaabiyaasha xafladda soo qabanqaabiya xafladdan quruxda badan waxaan sidoo kale salaamayaa oo ixtiraam iyo sharaf iyo soo dhaweyn badan u hayaa xildhibaanka inoo yimi cabdi yuusuf jibriil cabdi barre ku soo dhawow Columbus Ohio dadkaagii oo ku jecel oo ku soo dhaweynaya waxaan ku leenahay welcome to Columbus bulshada halkan ka soo qayb gashay ma soo koobi karo dhammaan waa idin mahad celinayaa marti sharafta qabanqaabiyaasha bahda meediyada Somali National TV Somali Channel Dalmar TV radio iyo channelada kale oo badan oo jooga iyo website-yada dhamaantiin horeyna waa idinku mahad celiyaa waan u malaynayaa wixii laga tagayna waa dhamaystirayaa aad baa u mahadsantihiin waxaan leeyahay hadal badan ahaan ma buuxsho wixii la oran lahaa hore baa loo yiri magaca un baa loo yeeray oo aan diidi waay ma ahay waxaan rabaa inaan waqtiga ka faa'iideysano waqtigu waa ina ku yar yahay aad iyo aad waxaan u sugaynaa Cabdi Barre xildhibaanka aan aad u sugaynay oo aad u qiimeynayno sharaf bayna noo tahay inaan soo dhaweyno Cabdi Barre waxaan jecelahay waqtiga intiisa badan inaan siino marka hadalka aad baan u soo koobayaa Soomaaliduna hadal badi baa nala ku xanta aad baan u hadal badana marka waxaan leeyahay mudane Cabdi Barre aad baan kuugu hanweynahay baarlamaanku mas'uuliyad badan bay leeyihiin waa hay'adda ugu muhiimsan saddexda gole oo dawladda sharciga iyaga ilaaliya iyaga sharci dejin oo sharciga sameeya waxyaalo badan oo loo baahan yahay waa idinku dhiirigelinaynaa oo ay ciidamada qaranku ugu horeeyaan inaad qayb weyn ka qaadataan sharciga in la ilaaliyo oo la dhameystiro oo sharci dalka iyo dadka dan u ah iyo diinta mar walba ku salaysan aad ilaalisaan wixii khaladan aad ka ilaalisaan idinka masiirka dadkaas oo dhan leedin dhiibay baarlamaankiina aan ma 250 bay baarlamaanka ugu dambeeyay waa mas'uuliyadda qaaday marka waxaan rajaynayaa hadalka waa soo koobayaa mudane caawa halkan wixii xog iyo tala bixina inaad nooga soo jeediso aad iyo aad baan waxaan u leeyahay xildhibaankii sanadkii u dambeeyay waxaad ahayd loogu hadal hayn badnaa ingiriiska waxay lahaan jireen xildhibaan caan oo la oran jiray George Callaway oo aad caan ugu ahaa golayaasha fagaarayaasha marka waxaan ku leenahay George Callaway Soomaaliya tahay marka aad baan ku soo dhaweynaynaa arintaas waxaan kugu soo dhaweynaynaa waxa weeye xildhibaanada kaama jeclayn iyo dadka Soomaalida ah waxaan ka aragnay way sanadkii u dambeeyay waad hormuudka ka ahayd adiga rag kula mid ahaa inaad ilaalisay oo aad u difaacdeen waxyaalihii markaas annagu dadweynaha intiisa badnaan u arkaynay inay tahay wixii saxda ahayd in la ilaaliyo sharciga aan lagu xadgudbin aan laaluus lagu bixin marka hadalka waa soo koobaya mudane soo dhawow dadweynuhuna aad buu u mahadsan yahay aad iyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum aad buu u mahadsan yahay Xaamud u yeeraya wasiir hore dabcan waa wasiirkii amniga dawladda Puntland mudane Ali Xoosh وانا وزيركي هوري امنيغا معها وزيرك مانتا سودو علي حوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة أن كسر دوينينو
xildhibaan cabdi bare oo qiimaha badan oo dadka khiyaartaayo magaalada liliidkeedii ay ka soo qayb galeen aad iyo aad baa inta ka soo qayb gashay inta soo qaban qaabisayba u mahadsan tahay xildhibaankana waa soo dhaweynaynaa warka halkan waxa la yiraahdaa ragga soo qaban qaabiya shirka waxay wararka la yareeyo horta hal habeen noo fasaxo warku ha iska bato oo meelaha kirada in warku bato ha laga dhigo laakiin marka dad warku inuu ku yaraado waa iska shida weeye wax badan baa laga hadli lahaa anigu war badan ka hadli mayo xildhibaanka waa soo dhaweynaynaa soo dhaweyntayadu waa mid kaliya laaba waana mid fariina weeye fariinta waxa weeye xildhibaanadii lacagta joogay inuusan ahayn oo lacag joogin marka maadaama uusan lacag joogin inuu bulshada dhexdeeda qiimo ku leeyahay kii lacagta joogayna fariin baan u diraynaa oo hadda waagii hore Soomaalida maanta ma jidho waagii hore Soomaalida qofku isagoo nool baa wax la oran jiray waa dhintay markuu ceebabo waxba lagu qaybsan jirin laakiin maanta ma jirto kulli waa la wada fiicay dadkii aynu soo dooranay xildhibaanada ahaa wax badan baa laga filayay wixii ugu dambeeyay oo hadda cabdi baraan halyeego ku noqday inta kalena ay inkastoo rag badan ay sharfanaayeen haddana kuwa badani maanta oo waliba deegaamada waa laga soo xulay dadka door bay ahaayeen marka laakiin maanta waa laga qawadsan yahay waxa looga qawadsan yahay wixii ugu dambeeyay oo hadda ra'iisul wasaarihii ina ka tagay cabdi wali mooshinkiisii baa waxaan loo arkeenay hanaankii looga dhaqmay wax xaq aan ahayn cabdi walina bilad buu ku qaatay cabdi wali waa ku cabdi bare waa ku soo dhaweynaynaa anigu horey baan ogaa muxuu ahaa xilliyo badan oo meesha hadda xamar oo Soomaalidu joogto oo dawladda federaalka ay joogto markasta geesi buu ku ahaa qodobada rasmiga oo hadii ilaahidankeeda leeyahay halkaas lagaga hadlayo marka waa ku soo dhaweynaynaa inta badan baan ku soo dhaweynaynaa kaliya la baan ku soo dhaweynaynaa qolada kalena fariin ha u noqoto adiga ku fariimayna warbaahintan ka sheegayna say u maqlaaneen marka Soomaalina odayaasha hore ka hadlay aanu ka hadlamayo hadal waa dhamaaday Soomaali hadalkeedu waa dhamaaday wixii nool hal arko assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaan waxaan u yeerayaa mid kamid ah dadka soo qaban qaabiyay waa Faysal Dhagaweel oo isaguna kalmad yar halkan ka jeedin doona soo dhaw Faysal السلام عليكم waxaan rabaa inta inaan uga mahad celiyo bahda TV-ga Dalmar TV oo adresskiisu uu yahay dalmartv.com facebook.com/dalmartv SN Somali Television Kulmiya TV dhammaantood waa mahadsantiin sida uga soo qayb gasheen iyo sida u ka fargareynaysaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa thank you very much mahadsantiin markan waxaan u yeerayaa Xuseen Mataan oo kamid ah marti sharafta oo halkan iyaguna kalmadaha ka jeedin doona marka ila soo dhaweeya Xuseen Mataan bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa marka hore dhammaan dadka Soomaaliyeed meesha isugu yimid gaar ahaan waxaan soo dhaweynayaa oo si gaar ah u salaamayaa xildhibaan Cabdi Bare Yuusuf Jibriil oo runtii in badan aan ka fiirsanaynay shaashadaha waa naga fogaa runtii caawa inaan nasiib u yeelano inuu hor fadhiyo aad baan ugu faraxsanahay marka xigta waxaan rabaa halkan wax kale anigu ma istaagino hadii dadka hadallada u qaybsanaaba jooga iyo soo dhaweynta kale oo faraha badan wax yar oo anigu aan ku taageerayay xisbiga midnimada iyo madasha iyo dimuqraadiyadda baan rabaa inaan halkan ka sii daayo markii aan maqlay xildhibaanku inuu yimid aan ugu talagalay intaas bal in uu taageeradii aan u haynay muddada dheer oo uu nagu soo booqday in aan ku soo dhaweeyo
wuxuu ku baxayaa luuqadda saarka gabaygu guurow maaha caawa noo guurow weeye marka gabdhahana waxaan ka rabaa mooyihii waxaan u malaynayaa inay ila garanayaan intooda badan ismaa hurbeena iyo mooshin lacag saaran oon sharciga meelowga ool mutax lama doonaye soomaaligii muuqda iyo maahirkiisoo kacaba mutaxa hortaagan baa murugada igu ridaye maamuuskii qaranka iyo madashii wadatashiga haddaan loo noqon midnimo ogow magaceenba iyo waa maqane moogtii ninkii kale waxaan lahaa macaan ciideenni iyo midnimadii naga luntaa maryaadkan igu ridaye macaan ciideenni iyo midnimadii naga luntaa maryaadkan igu ridaye marguusyadii aan lahayn hoggaan lagu meeriyo magacyada loola baxay maqal ku hayaanta iyo anmaatada loo rarayn hasheenna magool ahoo murqa kuustuuga iyo shisheeyuhu maalayaa murugada igu ridaye maamuuskii qaranka iyo madashii wadatashiga haddaan loo noqon midnimo ogow magaceenba iyo waa maqane ma ogtii ninkii kale waxaan lahaa maqrib iyo liibiya iyo mawjadaha yurub ka dhaca maydka iyaga daadsan iyo gabdhaha maanyada ku dhala qaar maalkoodii la dhaco madaxyada laga jaro masraxyada lagu gubaa murugada igu ridaye maamuuskii qaranka iyo madashii wadatashiga haddaan loo noqon midnimo ogow magaceenba iyo waa maqane ma ogtihiin ninkii kale waxaan lahaa ninkii kale waxaan lahaa midiya afaysan iyo miinada qaraxeeda iyo masas guri noo galaa mariid nagu sayrayo mashruucyaa nagu socdee maamuuskii qaranka iyo madashii wadatashiga haddaan loo noqon midnimo ogow magaceenba iyo waa maqane ma ogtihiin bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii qabanqaabada ee xafladan soo qabanqaabiyey quruxda badan marka labaad kasoo qaybgalayaashii mar saddexaad bahda saxaafadda oo runtii si ka duwan siyaabihii hore ay xafladaha u imaan jireen caawa u jooga waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan soo dhoweeyo xildhibaan cabdibare horena loo soo dhoweeyey astaanta qaran ee uu taagan yahayna la wada tilmaamay oo ah astaan soomaalinimo iyo in uu isku dayi jiray mar walbaaba inuu difaaco midnimada ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed sharaftii uu lahaa inuu difaaco farxad bay inoo tahay in uu caawa inala joogo Columbus Ohio martina uu inoogu yahay waxa ugu weyn oo xildhibaanku wali uu sii difaacayahay waxa weeye in la helo qof walba oo halkan fadhiya xaqa uu dalku ku leeyahay codka uu ku leeyahayna inuu helo waajibaadka saaranna inuu guto waa waxa ugu muhiimsan way sababtoo waxa weeye madashaani waxyaabaha hadda ugu weyn oo saldhiga u ah waxa weeye dalka inay doorasho ka dhacdo oo qof walba codka uu leeyahay uu bixiyo isla markaasna dadka qurba joogtaahu ay awood u yeeshaan iyaga oo jooga dalalka ay ku nool yihiin inay cod helaan si aad ogtihiinba qurba joogtu waa dadka ugu ballaaran ee maanta dibadda jooga way sidaas daraadeed madashu waxa ay mudan tahay taageero iyo garab istaag si aan codkeennii aan u muujino in badan waxaan u malaynayaa in la tabi jiray ama la eedayn jiray dadka gudaha jooga oo la yiraahdo ama siyaasiyiin yar oo kooban ama ururo ama xisbiyo baa taladii dalka faramaroojiyay maanta taladii dalka caqligeedii waxa la soo dhexdhigay dadkii diaspora ahaa maalmo ka hor halkan waxaa nala joogay prime ministerkii hore oo aad ogeydeen fariintaasna noo waday maanta waxaa daba socda waa xildhibaankii ka tirsanaa gruubkii ama tiimkii u istaagay inay difaacaan qaranka Soomaaliyeed runtii xildhibaano badan oo sharaf leh baa jira oo shaqeynayay
isaguna mid ka mid ah ayuu ahaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay xildhibaanka soo dhawow annagana sharaf bay inoo tahay inaan nucaawa ku martiqaadno madashan waana mahadsantihiin salaamu allah calaykum waaye iyo waliba geesinimadiisa anigana waxaan ku darsanayaa soo dhawow xildhibaan haddii maalin maalmaha ka mid ah uu cabsaday xildhibaanka maadaama ay jirto markaasi xaaladda ay ku shaqaynayaan ay tahay xaalad nabadgelyo xumo haddii ay noqon lahayd arrin siyaasad ama arrin markaasi dhinaca kale ee kasoo horjeeda ee xildhibaanada dhibaatada ku haya maadaama xildhibaanada ay markaasi yihiin wax target ama la bartilmaameedsanayo soo dhawow xildhibaane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يا لي مروين وحيدكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب آدي بان رير كلام بس هاي أقوم هالنغة هي حفلة دان شرفت لقيمها بدن خاصة جاريدي يقدي سواء بابلي يبقى هذا الصحافة ده كنت عاور رير كلام بس هاي وأيسا إن عاويت لبعض الرموضة ومهم سمرت واحد مركوري horta Soomaaliya horta waxa burburiya cadaalad darro burburisay cadaalad darradina halkaan caaw ka muuqataa cadaalad darrada halkaan ka muuqataa way caaw shay kara ya shay kara way gabdhaha hadalka loo siin way maxaa dhacay sabab sababtu xaq ma laha ya cadaalad darro inuu wali dabada ka wadna horta cadaalad darro iyo gabdhahana codka la siiyo codkooda hal dhageysto wadanka xaq ay ku leeyihiin warbixin baxshaan bay horta gabdhaha codka in la siiyo midda labaad halkan waxaa fadhiya umeenaya raggii dawladda Soomaaliya ama jaamacad wax ka soo dhigi jiray ama iskoolaad ku soo bartay oo calaanta ku soo bartay ama qarankii Soomaaliya muxuu ahaa daadayn jiray wax la ka soo bartay calankan macallinkii Soomaaliya hortay oo ka calanka Soomaaliya light blue Soomaaliya maxaa loo soo sameeyay kan guduudka oo taqtiga runti ku baday meesha loo soo saaro mise hadii wadankii burburo wax walba burburo calanka waxa waa burburna Soomaaliya horta calankii Soomaaliya waxa halkaan ay ugu xiran oo blue light ka ahaa hadda ka bacdi waxa weeye calankan taqtiga runti ku badan yahay inta la bedelo kii blue light ka ahaa oo rasmiga ahaa horta la keeno waxa halka ku sawiran calankaas loo soo waxaan waayay mise kan burburkii la iska sameeyo maray garbasaarta laga dhigtaan iska qaadan te wax walba haday burbureen aqliga iyo aqoonti iyo maskaxda burbureen te waa kala garaweyna Soomaaliya garbasaar baa laga dhigto adduunka calanka waa daadihaya waxa way calanka adduunka waa la qiimeeyaa marka te hadii maaragtay aan burburinay calankii waa burburinay maanta laga bilaabo dib inta la isugu noqdo ama kan inta lagu dhagsada ha ahaado ama mid kaan ha ahaado maaragtay meesha la saareen waka calankii rasmiga ah Soomaaliya ka dib loo soo celiyo oo laga fakaro maartay midnimada Soomaaliya laga fakaro horta intaas aan midin leeyahay midda kale kan caawa waxa laga soo jeediyay amaan badan oo magaciisiyo deenu haduu wax waajib ku ah horta lama amaanay waxa la yiraahdaa niyo soo soo badbaadiyada qofka hadii amaanta laga badiyana iska marka dan waa iska leexaya wixii wallahi bilaayo iska dhigaya horta taasna hal waada anigu kaliya amaanta milihi xildhibaano waxaanu ahayn 80 xildhibaano isugu soo hartay runtii 80 ka xildhibaana waxaan caawa qof kasta u sheegaya inay la mid yihiin 13 KS waa inay la mid yihiin Soomaaliya ay badbaadin doonaan waxa la idin ka rabaa ayaga iyo xukuumadoodii iyo ra'iisul wasaarahoodii oo ay idin sharixi doono horta inaad taageertaan wadada horta in markaa waa la idin ka rabaa waxaan rabaa halkaan caawayto inaan ka hadlo oo cambaareen uga soo jeediyo maamulka Soomaaliland oo dad shacab oo Soomaaliyeed yiraahdo dalka kama soo degi kartaan waxay ahayd idinku inaad u banaan baxdaan oo meel kasta aad ka hadashaan ma aha inaad ku hadlaysaan dawlad iyo muxuu ahaa baarlamaan iyo xukuumad maxay uga hadli waayeen dawladnimada la sheegaya waa shacabkii idinka horta mudnay inaad ka hadashaan oo aad muxuu ahaa adduunka u muujisaan inaad ka xuntihiin ma aha inaad tirahdaan dawlad maxay uga hadli weyday iyo magaciisa uga hadli weyday waa idinka dadkiina waa ehelkiina qof kasta oo Soomaaliya saa loo dhibaateynaya marka aad baan uga xumahay shacab Soomaaliyeed in la yiraahdo dal Soomaaliya kama soo gali kartid arintaasna waxaan fili doonaa inaan xukuumadda lagu xisaabtami doono sababta uga hadli weyday midda kale waxaan rabaa halka inaan ka hadlo oo maamulada iyo dawladda federaalka u jeediyo in ay ka daayaan caburinta saxaafadda gudaha laga hayo oo saxaafadii xaqiiqda dalka ka hadashay xabsi loo taxaabay taasan in laga daayo waxyaabo inaad ka hadashaan bay maxaa yeelay
Soomaaliya waxay la degilaadahay oo la burburlaadahay dhibaato anagu aan geysanay watiya wali socota marka ee dalkii waa ogtihiin oo dadka gudaha jooga iyo dalka maaragtay dadka dibadda jooga runtii waxa dalka maaragtay xogtiisa ka warqaba dadka dibadda jooga maxaa habeenada qaar kood anagu hurudna ama shir ku jirnaa waxaana dibadda laga soo war hebel waa la dilay dhibkaas dhawr ma ka haysaa ee ka bacdi markaan raadino wixii sida u dhaceen doorta wax idin ka qarsoon horta ma jiraan dalka anaguna wixii aan idin sheegi jiray wax midiya ka sheegi jiray oo dawladda aan ku dhaliili jiray horta wax ka bedel idin ma sheegayo intii ma idin sii boonboonay idin cusboonaysiinaya wax ka idin sheegi doona taas ogaad ma yahow anigu waxaan soo maray dhowr dal oo Yurub ah baan soo maray runtii inta waxaan u socday waxa weeye markaan qiimeeyay Soomaaliya meesha ku socoto iyo wadada ay ku socoto Soomaaliya burburkeeda iyo dhibaatadeena cid aan u eedeyn ma jirta inaga horta gacanteena ku burburinay waxaynu ka door bidnay inaynu dalalka sheeye iyo maaragtay qurbaha soo aadno aan nafbidno dalkeena barwaaqada taal iyo waxay tahay aanu caalamka ugu sarreeyno wax walba wadankeena ugu yeelaan dalka kaliya hobad iyo biri iyo wax walba oo isku qofalan oo barwaaqo ka buuxda waa dalkeena waxaanu door bidnay dibad soo yaacno runtii maanta ayaan darrada Soomaaliya haysatay qofku ilaa uu qurbaha yimaado oo dibad arko ama wadanka yimaado qofka gudaha jooga haddii aad tiraahdo niyo maxaa dibad ka doonaysaa wuxuu ku haystaa inaad waalantu ku haystaa dibadda waxaa loo haystaa barwaaqo iyo adduunyo inay taalo dalalkan nabadgelyo samaysteen dagaal sokeeye soo mareen dhibaato ku dhacday nin dalkiisii asagu samaystay oo amni ka dhigtay oo shuruuc u samaystay in u soo orodna maahan keenna maxay saa u samaysan miyayna ku ilbaxin dalalkan say u gaareen say horumarka u gaareen maanta muxuu ahaa Soomaaliya meesha laga sayla dadku waxay yiraahdaan raas Kambooni iyo raas Casir bay yiraahdaan raas Kambooni raas Casir waxa weeye waa meesha angalka ah oo badda xeebta ah ma tirahdaan sayla ila maxaa looga reebaa dalka inta ma la gooyo dalka ma la gooyo dalku waa sayla xuduudihiisu sayla meesha badda ku dhamaato xuduudan kale ilaa raas Kambooni weeye inta dadka u dhaxaysa maanta hadii la geeyo 20,000 oo markab halkii maalin la geeyo airportadana la geeyo maalintii la yiraahdo 20,000 oo faleeba airport ka baxaysa dibadda sida loo jecel yahay habarta muxuu ahaa baadiyaha joogta xoolaha ka soo dhaqaaqaysa xageeban horta u soconaa dalkii loo banaynaya horta marka shacabka horta dalkii dib ha loogu noqdo Soomaaliya maanta badbaadi u baahanta haddaan la badbaadin maanta Soomaaliya oo midnimadii Soomaaliya aan maanta la badbaadin waxa dhici doonta in la yiraahdo dalkan waxa deganaan jiray dal muslimiinta Soomaaliya deganaan jiray in la yiraahdo dalkeena aynaga burburinay haddaan dalkii inta burburinay hal mar u soo yaacnay reer galbeed u soo yaacnay aqligii aan dalkeena ku burburinay waa garanay aqligeena wadankan ku nimid waan garanay dalkan ku waa garanay maanta aan ka shaqeyno aqligan dalkeena ku burburinay aan dalkeena ku dhisno oo aan dib u noqono maanta aan ka shaqeyno Soomaaliya waxa soo maray dawlado kala gedisan oo marka horta waxa weeye dalkeena horta aynaga horta saas u burburinay meel kasto aan joogno waxa la idin ka rabaa ama guri ha joogo ama magaalo ha joogo tan aad joogtaan dalalkan waxa ka tihiin taxi bayr baad ka tihiin cashuur baad bixisaan inaad inta u tagtaan aad tirahdaan war dalkayga dhibaato ka socota war aqooyahankii waa dalkii lagu leenayaa war annagii aqli isu keenin wayda nala shaqay inaad tirahdaan hortaasi mid hore ahay dalalkan soo maray intii idin sheegi jirto idin sheegaya waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dadka reer Columbus Ohio runtii oo xafladan aad u soo dhaweeyay ee dadka magaaladan degan oo runtii magaaladan lagu sheego sida aan ka warhayo meelaha ugu dhibka yar oo aan Soomaaliya dhibaatada ku hayna gobol Ohio inay ka mid tahay horta aad ugu mahadcelinaya muxuu ahaa Soomaaliya horta meeshaas ka wada waxaan rabaa inaan dib u shaleecdo hadday halkan wadaadkii gabiyo Xuseen Aawi Buraanbur itirinayay maxaa guura u tirinayay booski carays Ciise Galo ha laga dubo taariikh dubo maaragtay inta ku ekeena dubo maaragtay dadkii wacyigeliyo muxuu ahaa guuro maaragtay wacyigelina dadka u tabi meesha kale iskala aamusine taariikhda anagu ma naqaan marka u diyaar garo waduu cajirinkaas marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku dhiirinayaa oo aan leeyahay war dawladnimadeena aynu dib u noqon
soomaaliya waxaan u meenayaa allah u naxariistay maxamed siyaad barre markuu dee soomaali ka yaabay oo meel u socdaan garan waayey buu yidhi iimaanka alla idinka qaad marka sidii aan u yacnaa marka iimaanka rabbi nooga qaado war inta la ducaysa dalkii dib ha loogu noqdo soomaaliduna sideeda markay waxaynayso waxa la yidhahdo isbeddel dee caalamku jamhaday waxeeyaan oo jamhadaha markay waxeeyaan program dhisan iyo ma wax dhisan bay la tagaan tasuur bay la tagaan aynagu program laban tagaan allow kan naga bixi bay dhahdaa kan naga bixi dee kanu baxaya maxaa yimid ka daro dib la Soomaaliya kama dhicin marka nimanka aan dalka aan dib u soo laabto aan xaaladda dalka Soomaaliya maanta meeshu ku suurtaalkaas ku sugan yahay ama baarlamaan aan ahaano ama xukuumad ahaano dee shanta afar ilaahay masiiban haddaanu leecleecnayo meel ka xumaanay dee idina inaad dee baarlamaanka ku tiigataan oo tiradan waa laalo shaqatiyaal iyo waa caada qaatiyaal ma ahane dee ma waxaad ku qiimeyn weydeen 80kii xilmaan go'aanka ay gaareen iyo xaaladda ay Soomaaliya u bedeleen dee intaas ku qiimeey waxa tira war baarlamaanka isbedel baa ka sameeyay dhahayo oo ayar bal u soo duceeya baarlamaanka u soo duceeya kooxda soo duceeyay imayow dalka waxaa jooga Soomaaliya horta haddaynu cid ka sugayno dawladnimadeena cid aan ka sugayno dawladnimada ka sugina ciidamo shisheeye haddii lagu soo daadgurayo dawladnimada ka sugina haddii la rabo Soomaaliya dawladnimo in laga dhaliyo ayadoo shacabka Soomaaliya kaashanayo muddo 3 bilood kuriya Soomaaliya lagu soo dabaali karaa dawladnimo lagu soo dabaali karaa ciidamo waxaa dalka jooga 24,000 ka badan baydan la tahay 24,000 muxuu ahaa 9 sano inay sii marayaan 10 sano ku dhawaad inay sii marayaan oo waxba ayna qaadan baydan la tahay inay idin keenayaan dawladnimo waxba idin keenay maayaan dal shisheeye inuu dhibaato idin keeno ma ahane shacabka Soomaaliya idinka dawladda ku xiranta waa koow Soomaaliya muxuu ahaa inta aynu leenahay mid wax aragsaale igada muxuu ahaa dalkii balaaya ku dhacday wallahi xamar ma tagay ilaa nabad ka dhacdo dalkii ma tagay waagi nabad dhacaan tagaya cid nabad idin keenaysa mal idinku haddii nabad iska maanta saas 20 sano ka bacdi barti bay taagantay si taagantay waa ka sii daraysaa marka shacabku gacmaha inta la isqabsado oo la iska daayay qabyaaladda iyo qurunka iyo reer inta la iska daayo horta dib aan isugu soo noqon Soomaalidu waxay ku maamaadaa sagaar haday dabaleed dabada ku qarsan lahayd war aynagii waa iska daba wareegnayaan u eedeeyna horta waxba yeena caalam eedeyn markaynu aynu wax qabsano oo aynu dad noqono baa caalamka waxa la oran karaa warna kaalmeeya wax maxaad noo qaban waxaan haysanaay laakiin dad maalintii soo taagan war wax noo qabto dalina wax ku qaban mayd inaad waxba ahayn lagu aragi dalalka maanta dalka dawlad muxuu ahaa ciidamadooda ilaalinayaan waa dalalkii Soomaaliya xornimada u raadin jirtay waa dalalkii ciidankooda aanu ku taabari jirnay dalka aan ku taabari jiray maantana aynagii ay maaragtay meel qaar ku ay wadanka tagi karin marka dan inooma ahan sidaani shacab Soomaaliyeed inta la isku laabto aqli waa shaqay maskaxduna ha shaqayso ciidamada 24 kuna dalka waxay ku qaban karaan wax yar Soomaaliyana ilaa aad maqashaan ama aad aragtaan muxuu ahaa ninkii dambi galay ama kii maaragtay khiyaano qaran galay maxkamadda caalamka la soo saaro dunuub buu galiyay la soo saaro ilaa inta caalamku taa uusan oraynin Soomaaliya dawladdu lama rabto laakiin maalinkaad maqashaan war buu kana hayo maxkamadda la soo saaro ee muxuu kan dawladdu ka soo maxkamadda la soo saaro maalinka waxa iftiimaysa hididaalo Soomaaliyeed in dawladda caalamku raba halka ka soo muuqato marka horta taasna horta hal la ogaado idinka la idinka raba marka inaad caalamka miis kasta garaacdaan dawladda adduunka weyn baa joogtaan inaad miiska u garaacdaan tiraadaan war waxbaan qabsanaynaa kaalmeey oo sida noqdaan laakiin hadda aynu wanahay 10 firqo oo qarabo meel u yaacayaan tii siyaasaan u hayna laakiin horta aqli waa shaqeeyo ciidamada 24 kuna wadanka jooga maanta hadii baarlamaan yiraahdo habbo hanala ka baxo naga bixin cid ka dhageysanaysa mali dawladdu haday tirada waa isku filanay cid ka dhageysanaysa mali maxay looguma talagelin baad inaad dawlad noqotid ama horumar horta looguma talagelin ciidamadaas bishii waxay qaataan $1,500 bay qaataan oo joogto u qaataan askarigooda dhaawacma dhaqaatiirta caalamka ugu dambe la gaarsiiyay askarigeeni dalka u dhashay oo xuquuqda laha wada u laha waxa ay askarta lagu soo tababaro Uganda iyo Kenya dalashii lagu soo tababaro ninka la soo tababarayo waa in wadaniyada la baraa Soomaaliyeed waa in la baraa waa in la baraa dalkan qiimuhu ku leeyahay asagu leeyahay waa in la baraa waa in la baraa dalkan asagu inuu cadawga ka ilaaliyo waa in la baraa lama soo barayo sidii qof loo deeyo la soo barayo xamar baa la keenaya meelaha lagu daadinaya maalinkaas ugu dambeeyay daryeel male dawlad daryeelaysa maaragtay ciidanka kasbanaysa malahan ninka askariga markuu dagaal furinta ku dhaamo asagoo tuuta kaba cagacad qaba saandal qaba
asagoo tuuto iyo muxuu ahaa mara kale jaanga qaba dee furunta markuu ku soo dhaawacmo dee waxaa la rabay xukuumaddii iyo dowladdii muxuu ahaa taakuin lahayd ma lahana iyagaa isku mashquulsan mooshin iyo ra-iisul wasaare maalinta cayri iyo kan cayri bay ku mashquulsan yihiin ninkii askariga ahaa oo soomaaliga ahaa oo dhibkaas ku dhacday rabbi maalinkaa wuxuu badahayaa waalidkii dhalay hooyadii iyo aabihii oo aan xataa 10 dar u helin baa rabbi badahayaa waxaasaynu ku jirnaa ma idinla tahay inaan saa uga bixi karno dowladnimo cid marka kula rtay horta niman yahow damiirkiinu ha shaqeeyo inta caqligu shaqeeyo horta dib ha la isugu laabto intaas haddaan uga gudbo waxaa ii soo haray baarlamaanka ii soo haray runtii haddaan halkan caawa baarlamaanka ka ammaano been baan sheego أنا حكومة كلية عيرسنا خلادات كذلك كتير برلمان قريب كلية محيل البرلمان قصابة كلا قريب سبب جروب وارم برلمان كشروع ده لوسود الشيء وحي هذا كان وهذا ذلك أقول الرئيسي إنه وحى خلدان قبطان إنه وحى قريب لكن ده برلمان كلفت يسي سيدا وحى البوق قريبين باكل قريبين هذا وحي هذا ذلك الشروع يسين للدشيو دستور كان كميلجار كاه ولا بتجوز اسكمل كميلجار واحد بدن خلدن إرما أنت واحد وقت أفتيد بدون الله دياريو سير الله دري دور شهر الله دري رياه لا بس سمين محيا لي حكومة دي هي سد بيال ربعين برنامج سا كينا دي حكومة دي نمد ولا مركز صدح بلود قاعد تشوف الاسكوف راي أنت اسمه مشغول سين بوحل بدر ماذا مركز وحل بوحة كوين هذه تلكي وحل بوحة كوين هذه محاهب الله تابت محا كان الله تابت قفل برصاص يحتاج كويناتي waxyaalaha dalka ka socda wax sharci iyo wax sharci darraha waxa soo haray gobolada maamul goboleedyada la dhisay dalka la soo dhisayo maamul goboleedyada la soo dhisayo dalka la soo dhisayo oo dawladdu faragelin badan ku hayso waxay ka matay dastuurka la jabin horta ka mid waxa dawladda haba yaraatay oo la maamul goboleedyada la soo dhisayo dawladdu faragelin kuma sameyn karto shuqulna kuma horta dadku waa dad islaayay dhowr iyo 20 sano burbur soo dhexmaray dad gobol lagu khasbi karaan ma jiro qabiil lagu khasbi karaan siisa ma jiro maxaa yeelay horta dadka isku khasibtiisa oo dadka heshiisiisa maahan soo in dadku wada hadlaan maahan ee dastuurkan waxa weeye dadku waxa weeye in madax banaan yihiin laba gobol iyo ka badan israaci karaan laba gobol iyo inta ka badan horta iyaga israaci kara iyaga wax isku darsan kara waa in heshiis ay galaan wada fariistaan wixii dhexmaray ka wada heshiiya markaas ka bacda haday israaci karaan israacaan laakiin intaan hadda ordamaha ina iraahdo maxaa gobol kan haraaco kana haraaco maahan waxyaabaha shuruucda lagu jibinaya maamulada la dhisay oo dhan hadda la dhisay iyo kuwa dhismi doona wadadii waxa lagu dhisay sharci darri gid ku wada dhisan yihiin mid sharci ku yimid oo nidaamkii ku yimid maahan malahan wala meeshan madaxweyne ka orday madaxweyne inuu arrimaha dhex galayna waa sharci dar qofkii maqlaaya hadda ha maqlo madaxweyne ma dhisi karo maamul goboleed ma dhisi karo sharcina uma lahan waxa dhisi kara maamul goboleed waxa weeye xukuumadda dhisaysa waa shaqo xukuumad waxyaabaha maalinta ra'iisul wasaare iyo madaxweyne isku qabsadaan bay kamid waa shaqo xukuumad madaxweynuhu asaga la rabaa sharciga inuu ilaaliyo waa sharciyaalihii dalka asaga la rabaa sharciga inuu ilaaliyo ma aha in la yiraahdo in shacabkii la tuso maaragtay maamul xumay adduunyo la tuso in badanna waa ku celinaya haddana waan ku celinaya madaxweynuhu waa inuu sharciga ilaaliyo hay'ad kasta shaqadeeda horta loo daayaa markii maamul goboleedyada la dhiso ay diyaar garoobaan oo wax walba ay qabsadaan waxa goobjoog ka noqonaya xildhibaanada deegaanka ka jooga la soo qabanaya markii xukuumadda kaliya waxa dawladda laga rabaa xukuumadda laga rabaa laba maamulka laba arrimood ka soo gali kartaa qodob saddexaad baarlamaan baan ka soo gali karin xukuumad baan ka soo gali karin madaxtooyaan ka soo gali karin labada qodob oo ay dawladdu ka soo gali kartaa waxa weeye meesha shirka lagu qabanayo amnigeedu koob inay sugto dhaqaalihi ku bixila inay meesha dhaqaalaha bixiso wixii inta ka roon oo lagu sameeyo waa faragelin iyo burbur iyo federaal diid way horta arrinta meesha ka socotaa xaqiiqda dhabta horta ka jirta arrinta ka socota mudug iyo galgaduud gobol iyo barmeelay ku taala muxuu ahaa gobol iyo barmeelay ku taala maamul ha loogu dhiso waa sharci darro nidaam dawliya maaha waxyaabaha hadda ay u taagan tahay midnimada maadaashu u taagan tahay oo rabta inay ka hortagtay kamid tahay dastuuriyana maahan sharcina maahan de ninkii wax dastuurka ku tumanayo sharci darro ugu tumartay asay u taalla horta asay u taalla waxa kale oo sharci darro ah maamul dhisan oo jira oo muxuu ahaa ka fac weyn dawladda maanta federaalka oo jirta ka fac weyn oo Soomaaliya burburtay
soo jirtay oo midnimadii Soomaaliya inta raadinaysay oo dawladnimada Soomaaliya raadinaysay in la yiraahdo iyadina hadda lafteeda tafaraaro ha lagu furo iyana gobol hal la bulsho dhisan ayana waa sharci darrada iyo amni darrada dalka lagu maamulayo kamid yaadeer haddaan horta runta la sheegin oo madaxa hoos loo horto waxba hagaagahaya dadku in runta loo sheegaa Soomahan shacabka Soomaalida waxa la rabaa iyagoo isu cawlafay horta in wax walba horta runta ka sheegaan baa la rabaa maxaa keenaya marka isqabqabsiga iyo isku horimaadka maxaa keenay maalin kasta waxa maqaysan ra'iisul wasaaraha maaragtay muxuu ahaa iyo madaxweynaha isku dhigan maalin kasta isku qabsan hadda ra'iisul wasaarihi saddexaad baa la maraya armaan sugnaa kii afraad miyaan sugaynaa haddana marka runtii waxa weeye dalka dawladihii ku meel gaarka ahaa ama tan hadda kursigeedii beesha caalamka dib ugu soo laabatay xukuumaddii hadda jirto u dambeysay waxa weeye waa xukuumaddii horta ugu adkayd oo runtii muxuu ahaa isbedel ku sameysay shacabka Soomaaliya ku sameysay horta wax yar baan rabaa dadka inaan dib u noqdo intaana taagelin dad badan oo waxaad arkaysaa muxuu ahaa markaad xamar iyo joogtid ama meelaha joogtid ama Yurub maraysid wallahi waa fi nacam muxuu ahaa xornimo Soomaaliya maanta muxuu ahaa dawladnimada Soomaaliya maanta la helo dawladnimada Soomaaliya muxuu maanta istaagtay war dawladnimada Soomaaliya maanta lama qaadana كان أقولنا كي قانا نوي قان كان أقولنا ساكو هذا هي مهني دولة الصومالية وحي نقطة لحدا كوا علم كذا يونت نيشن كلا صار دولة كدن بيسمحوها وديب لو عن سنة يا ملك لكن كرسي دي بيش عالم كدور 20 سنة كم مغرد بديب لو سعش أو اللي بلدت كان اسكور ده بل إنه وحقرتان بل دولة نما يديبها لو سعش وهو حيس لكن وحيسن كروين مركب محاكيني مالين سيرسل سار اسقب سنة هي وحاكيني dadka waxa ka dhigan ama madaxweynaha haato ama cid kale haato waxa ka dhigan muxuu ahaa dawladeena kacaanku hadda militariga haydo aynagoon dawladnimada dalka haysatay oo maaragtay dhowr iyo 20 sano haysay waxa lagu leeyahay barasaba maxay sad bar magacaabi jiray muxuu ahaa waxaan tiiba dadku ku qofleen tii waa laga soo tago burbur iyo dhibaato dhacday wuxuun baa la sameeyay Soomaaliyana maanta wax badbaadin kara hal limba badbaadin kara halkan inuu badbaadin kara waxa weeye nin aan naxariis waqtigan xaadirka ah oo kii nugu yiraahdo xabad ku dhufto kii kale taxabsi ku rida mid kale dibadda u carara inta nadiifta xukuma Soomaalida ma xishootay way baqdaa laakiin in la baqdinta lagu magaciisiyo Soomaaliya marka waxa weeye Soomaaliya waxay u baahan tahay nin adag bay u baahan tahay midna waxaan rabaa inaan idin sheego muxuu ahaa wadanka cadaalad darro badan baa ka jirta Soomaaliya madaxweynuhu xaq ordahaya xukuumadda xaq ordisa baarlamaanka waxaanu sameeynayaa inta isu tagtaan loo diyaar garoobo sidii maaragtay dhibkan dalka looga saari lahaa sababtoo inta xildhibaan leeyahay muxuu ahaa oday dhaqameedka soo doorto inta leeyahay warhor ha soo hogaamiyaha soo doorto inta leeyahay muxuu ahaa maamul goboleedka soo doorto oo lagu keenayo in adeerow iyo kan iyo reebel iyo wariyaha reebel oo afdheer reebel laga celin karo hoos laga soo anufanayo horta dawladnimaha sugune midna ka sugune cadaalad darrana muxuu ahaa ka cabanina maxaa yeelay wadadii cadaalad darrada hortaagan baan hor soconaa laakiin waa inaynu ka shaqeynaa in la helo baarlamaan xor oo idinku gacantiina ku soo doorateen waa in la helaa muxuu ahaa madaxweyne idinku aad ku soo doorateen gacantiina sida lagu heli karana waa soo socon doontaa maxaa yeelay xildhibaanka marka idinku soo doorataan oo codkiina ku shaqeynayo oo magaciina ku shaqeynayo madaxweynaha idinku aad soo doorateen ninkaas khiyaano ma sameeyo mana degdeg dhibaatana ma sameeyo maxaa yeelay shacab dadweyne ku jooga baarlamaan mooshin keenayo la muxuu ahaa kan iga saarna midna ma lahan marka baarlamaanku awood ma lahan oo shacabkaas ka mid yahay waxba ma sharcigaas u ilaalinaya horta taasina waa in la ogaadaa waxa ay soo haray 2016 horta markii inta horta markan ku waxaan dib u galayaa arintii mooshinkan iyo arinta ay ku aasaasantay maadaasho ay ku aasaasantay waad ogeydeenoo haddii la arki jiray maalin kasta ra'iisul wasaare bilaa macdaro lagu cerisho iska baxo maaragtay hadii baalkii bidaarta laha qaado hooyo ninka iga sar arki jiray jadwalkii waanu bedelnay oo soo ra'iisul wasaarayaashii hore muxuu ahaa Cabdul Sheekh horeeyay imisa lagu bedeli jiray lagu eri jiray 2 maalmood 3 maalmood soo lagu eri jirin
cabdiweli iyo xukuumaddiisii waxaanu difaacayno ay qaadatay 46 casho waad ogeydeen kombooyinkii iyo seerigii iyo waxaan hortaagnay waa la socotay ma fahanteen halkan maxaa ku qoran no vote for cash kuma qorna haddii baarlamaanka saa wax u bedelay oo shacabkii Soomaaliyeed meel kasta ka taageeray oo caalamkii taageeray idinku miyadan say xukuumaddiisii iyo wax la miyadan taageerinin waa in aad taageertaan midnimo leeyahay markii mooshin maqlaan wallahi maanta kuwa waxa u bisil horta moshinku waa sharci moshinku waa la xisaabtan xukuumadeed hay'adaha dawladda in laga xisaabtan baarlamaanku la xisaabtan waa sharci horta taa ka didan laakiin mar waa laga didayaayo de markii baalkii ganacsi isu bedelaya Soomaa markee ninkan wax horta soo wax baxsha Soomaa marka moshinku sharci weeye laakiin wadadiisii in badan baa ka leexatay annagu baarlamaanada hore mid waa uga fiicanna midna waa noo ka fiican yahay baarlamaanada hore baarlamaano ordahayo miiska garaacay ahaayeen waxaana qaldan tilmaan jiro badda difaacayo wax walba orjiyo dhulka difaacayo annagu waxaasba uma jeednaba waxaan annagu qaarkay u jeedaa muxuu ahaa war hebel isee loola hadli karaa maxaa hebel loola hadlay hebel muxuu ahaa madaxweyne maxaa loo fiirsho xagga loo ordahaya qaar xaggay taagan yihiin oo muxuu ahaa waa iska amuraysan yihiin qaar de waa dawladnimay raadinayaan oo waxay leeyihiin waxaana qaldan oo waa tiimka iyaga kale wali ta u taagan marka تيادر حكومة أن موشيل أن الله حساب تمن حكومة واش شد مركي اللي بلود قارت إن الله حساب تمن إن رئيس الوزراء لوير ولحد بلود وحو بركو قاري لوير حساب تم كذا لوير وها حكومة قبضتي إن حنكيسي برانسكي محا حكومة وضرها كل معمولة هي محو كقبضتي حكومة ما ركتي أن الله حساب تمن وأن لويرين أو واحد واتان شغالة دي هاي سته توان إيجا صار شان أنا كان سمانتنا إيجا صار هذا رسول عدالة درهدي ما هي الدولة الآن تمحرم نصومها وعوي حكومة داس رئيس الوزراء أود وحولي هاي والشرع أولي هاي مقعابس تقولي سوسير هذا يوسير كحجنا يوسير دولة إنه مقعابه كم قرنا حتى ترشوا تستورك إنه حتى لا تشهد مدحوين ولا تشهد لكن احترام ولد وحلي وحسن سبين هي كور بوريه يكون شغل إنه إسكوشان ريح حق بوليه قضب كبقولات فرق دي سي يبي وكحسين تستورك داركتي رئيس الوزراء وحاول وليه مقعابس أقولها وسير هذا حلك قادس إنه حلك قادو إنه إسكوشان ريو رئيس الوزراء ومركم مدحوين تو إسكوشان رينا هي الصومالي وليه موحن تعلينا هبل هي قالها هي هبل بنتونك كوسيتا هي شخصي قرن هي شخصي قرن كوي دولنا موحن بربرنا إن أول دباتين محا هبريان لقى تابن هبريان لقى تابن وحين كانت أورد كاتي دباتاس إن كانت مركب وحاوي مركي رئيس الوزراء وحكومة إسكوشان دي واد أوجيدين مدحونهم مقرصن إن تميديا استاجي أو تيفي استاجي رمحوها شقدي النوات الحل إذا كما قاعد كره تي محمد كالوكل الضمبين هي مدحوين الشرع إلاني يدوسا وهالله هذا المحل وكل الضمين هي تحني الله أركين مدحوين أصلا أفكس كشيء صوما سوى سعودي صوما مركب markii arintaas u dhacday annagana waa ka hormid waxaanu ahayn xildhibaano badan baan dad badan ba isweydiiyay waxa la maxaad codka u hesheeno waa idin kala magaciisay de maalinta media waad ka maqli jirteen muxuu ahaa nimanka naga soo horjeeda waa 20 iyo waa 30 iyo Soomaaliya maqli jirin annagu mooshin dadku waxaan u qaadanay inaanu codka u qaadanay kalsooni buuxdaan haysanay waana ku galnay markaanu caalamkii tusnay in muxuu ahaa waxa socda sharci darro yihiin shacabkii Soomaaliyeed meel kasta nooga baanan baxay oo nagu taageeray caalamkii oo dhan nagu taageeray in wadadana lagu socdo ay khalad tahay xukuumadana sharci darraba in lagu rido waxaanu door bidnay waxaana war maalin kasta intaan oran lahay kuwan waa qeyliyaan oo waa 20 oo magaciisi oo iska ordaya de codka aanu qaadan runtii annagu kalsooni buuxda waysan haddana waa haysanaa annagu maanta waxaan aaminsanahay inaanu guuleysanay boqolkiiba inaan guuleysanay maxaa yeelay shacabkii Soomaaliyeed meel uu joogana wuxuu taageeray maadaasha midnimada iyo xildhibaanadii badbaado qaran uu taageeray iyo xukuumaddiisa meel maanta aan looga hanweynayn maanta ay tamalahan ra'iisul wasaarahan hadda ra'iisul wasaare Cabdiweli
idinku waxa anna waxaan xagga xamar waxaan u bixinay muxuu ahaa yuulkaan u naqaanaa Soomahan laana waxa ulama yeelan maanta Cabdullaahi Madaxda waxa uu yuulkii meeyay leeyahay marka waa ninkii koowaad horta waxaan rabaa waa ra'iisul wasaarihii koowaad oo inta dibad ka yimid ama muxuu yimid aan dalka ka bixin oo haddana xaafiis xamar ka furtay waa ra'iisul wasaarihii koowaad horta ogaada kaas waa ra'iisul wasaarihii koowaad waa ra'iisul wasaarihii koowaad oo yiri waxaan waa sharci darro wax la iima yeerin kara shaqada faraha ka bax madaxweyne ku yiri waa ra'iisul wasaarihii koowaad waa ra'iisul wasaarihii koowaad oo 11kii ra'iisul wasaare ilaa carta soo maray ugu adkaa runtii muujiyayna Soomaalnimo muujiyo horta inuu horta hal ogaado haddayna qofka sheegin muwaadinka qofka muwaadinka haddayna sheegin wuxuu qabtay haddayna sheegin ama wuxuu saayna tilmaamin tiyaadir maxayna dadkan baabiina Soomaal Xasan Sheekh haduu yahay madaxweynaha dalka ugu fiican oo corruption ka nacab oo madaxweyne raadinaya waxa waajib inaa iraahdo waa madaxweynaha ugu fiican bay waajib ugu tahay inaa iraahdo anigu inaan waxdii qarin maayo cidna wax ma qarsho corruption ka ninka waxa leeyahay waxaan waa khalad adeer qof maalin hal maalin buu dhintaa laba ma dhinto waxa weeye dalkaaga adoo u dhimanaya waa inaad u dhimatid adoo u halkamay waa inaad u dhimatid marka xukuumaddaas dee markii aanu codka galnay si kasta ahaatee habeenkii baa deena la dhex galay waxbaana laga kaxayst runtiina kalsooni buuxda 100% haysan hadee shanta farad ilaahay ma simin subax ilaahay wuxuu qadaray inaanu isugu soo harno dee inaanu 80 isugu soo harno rabbi qadari laakiin 80 kayagii qolada naga soo horjeeday oo ilaa madaxtooyaha haato ama wasiirro kala haato intaas naga horeeyay ayagu waxay ku xisaabtamayeen dee 230 iyo 240 inay cagtan ugu marshaan oo yiraahdaan walba 4 madaxweynaha rabshaysan inay yiraahdaan birribe waxa yeelay waxa dhibay deegaan maalinta Soomaaliya toos ku qaadna Soomaaliya arkayn mar seeri loo garaaco mar koomboy isla dhacayna soo tiifida kama arag ya maalinta saddexaadna waxaanu nir birrina aanu saliganaba ku qaadna waa intaas xoog isbedelay ya ala ay xal markii codkii sidaas u dhawaaday anagii maanaan iyo jabin barkee waxaana u neejibay shacabkii Soomaaliyeed guud iyo dibadda taageero waxaana taageeray beeshii caalamka dhan baana taageertay waxa marka haddana dhibay ra'iisul wasiir maalin kasta ilaahay daainkeeda leh ra'iisul wasaare iga bax iscasil marka tiraadu ma iscashid wuxuu leeyahay war hadda iscasil midka lagu bedelay adeerkii wada kiibu ka cararaya inuu iscasil mar rabadii tii ra'iisul wasaarihi iscasil waxay la mid tahay hooye iyo aabe ilmahoodii inta u tagay yiraahdo aabe hooye imaada dhalin boorta la mid yahay soo saas ma ahan maxay ana ninkaan soo ibriyahay oo la aniga wasiir ka dhig kan reebala ka dhig kan waa markuu meesha ku balartayna dhinac kale u boodaa war iscasil buu yiri te kaanagta waxa loogu sheegay wasiir baa lagu siinayaa mid yaada ra'iisul wasaare lagu siinayaa mid yaada wasiir laga taaban maayo annaguna ayar hawshayda waa wadanay ma aan banjirin barkee waxaan u banjir weynaa maaragtay u kala daadan weyn mar haddaanu shacabkiisa kalsoonidiisa helay oo beeshii caalamka kalsoonideeda helnay waa inaanu tusnaa inaana kaliya aan difaacin xukuumadda qaran Soomaaliyeed inaanu raadinayno inaanu caalamka tusnaa shacabkii Soomaaliyeed aanu tusno waxaan ku gaarnay annagu 4 wasiir oo target noo ahayd horta inaanu annaguna culays ka saarno markee baawarkii la aragay nimanka la aragay caalamkiina wuxuu yiri madaxweynaha waa la soo hadlay xukuumadda waa la soo xalay annagu 80 ka xildhibaan go'aanka ay qaataan iyo xukuumaddiisa iyo wasiiradiisa iyo ra'iisul wasaarahooda la socda go'aanka ay qaataan baan qaadanaynaa talooda qaata markii hore waxaan idhi waa inaanu maaragtay dawladda u qaybsanaa power share u qaybsanaayo xoogaa meel baanu annagu aan uga dabacay markii hore waxaana war wasiiradan maalin kasta muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha iscasil haddana wasiir soo galaya soo birri mid kale ma oranaya waxaan go'aan ku gaarnay inaan 4 wasiir oo meesha ugu tunka weynaa xukuumadda inay soo galin wax kasta oo dhaca ra'iisul wasaarina waan u yarna waxaan ra'iisul wasaari qob iyo qayladan iyo seeriga iyo halka markii miiska la garaacay iyo New York ba joogto ku raaxaysanaysa niyo mishiin wareega soo gashay talayada wax ka qaado hal dhinac qaadin
dee haddaad tala keliya qaadatid annaga 80 xildhibaan baan yidhaahdaayo waxayagu waa maya dib baad u noqonaysaa talayada waa inaad qayb qaadatid adigu ay xal isku soo diibo soo oranayo maalintii horeysay waa kuwii afartiin oo inta ka qeynay meesha ku soo dareen yaa ku soo dareen yaa anaguna garab kala helna marka nimankaanu ka weynay war xukuumaddiina haridina war jooga meelan ka galna aan weynay oo tiimka tirada badnaa hadee dawladdu 200 iyo muxuu intaas wasiir ma noqon kartaa oo nin walba dhagta wax loogu sheegay dee afartaa wasiir qayb ka mid ah magacaabaysa moogta wasiirada adan wasiir ku siinaa wasiir xukun ku siinaa wasiirka maaliyadda laga dhigay ra'iisul wasaare ku xigeen baa laga dhigay adduunka lagu dagaalgasho dee afartii wasiir markii maalintii inta wasiirada la magacaabay oo tiimkii asaga iska waayay waa koox saaxiibada oo wali xildhibaan u badnaa dee ayagoo didaya sidii aba helo kale oo ku nagu soo diday marada rashada maxaa xukuumadin u rida ma yasaana basaas ma naawooday kan ka dhacday magaciisi xaga ka dhacday ma naamooday tii cadow waa loo kaashay waxaan adeer nagu darsay maysaane idina ku la sameeyay halka naga istaaga laakiin nimanku waa cadowgeen horta taasna nimankaan garab baan ka helna xukuumadii markii la magacayo warqad baan warna waxaan afartaa wasiirada ku jirtaan maya Umar dib buu noqdo waa tuunta nooyin 14 shahar lagu daro waa loogu daro bayaan baan soo saarnayo meel ka warqad doqon waxaan afarta wasiir ma soo galeen saaliye nimankan ku dadlaaho 80ka waa niman dhib badan hadda ka hor waa ku yiri maxaa waa in power loo qaybsado dawladda loo qaybsadaa wasiirada hal la siiyo dib baa la isugu noqdo ku dadlay 80ka waxa la siiyay 9 wasiir iyo 5 wasiir ku xigeen iyo 4 wasiir dawli waa imisa xukuumadda 80 Soomaaliya dee waxa la yiri hanaga aamusan afartii hal ugu soo daro adigu arintii waxaanu ka war helnay waxaan ka helay in barima wiiga dam lagu dhawaaqo doon 2 maalmood ka bacdi afartii wasiirada waxa la inay wasiir intaas wasiir ba hesheen 9 wasiir ba hesheen waxa hesheen muxuu ahaa 2 wasiir intaas dawladda wasiirada ku leedahay aan qaadano way bari isu kan keenay meesha qadada annagu xarun baan leenahay xarun aanu ku tashano la leenahay xarunteedan maanta ku hilbaqaan maalmo meel baan ku hilbaqalan jirnay xarunteedan tagna waxa la yiri 9 wasiir baan helnay 5 wasiir ku xigan baan helnay 4 wasiir dawlad dee maxaa naga maqan war dhageystaan oo haddaan saa qaadayna tii hore maxaan u celin soo afartii libax meesha kuma jiraan adeer wasiir baad wasiirada cirka hal aadin ma yeelanaan haddee waxaan power sharing baan rabnaa dee power sharing ma afartan dhex taagna soo siisan sameyn mahaya haddaan hal wasiir waayeyno hadalkeenu afartaas wasiir hadday ku jiraan waa maya afarta wasiir maya aan ma soo galahayaan taasna tartiib baa loola noqdo xaalad inuu xuntay waa la arko marka waxaan dee isku marka adu 160 baa isku meelahaas dee dib markii loo noqday waxa la iyagana aan ka xanaajino aanu caalamka tusno nimanka inay fooday yihiin hadda wasiirada markaan ka reebno oo wasiirada ka reebno way xanaaqayaan waxay oranayaan figma laho aanu shacabkiisa Soomaaliyeed tusno inay nimankan fidwaali yihiin caalamkeena aan tusno dib baa loo noqday 25 wasiir baa la soo magacaabo dee markii hore waxaan ku lahayn niman waaweyn baan 9 wasiir soo kuma aan lahayn wasiirada buuxa wasiir ku xigeenada iyo dhib iska ma lahayn dee meeshaan 9 wasiir ka lahayn waxay yiraahdeen waa ka xanaajiyeen hal wasiir bana siiyay wasiirka cuqaaftii diinta naga siiyay 9 wasiir dee markaa waxay lahaayeen way xanaaqayaan caalamkan ku direynaa shir degdeg aan qaadano xarunteena tagno waxaan baa soo dhaweynaa sacab baan ku soo dhaweynaa dee meeshay lahaayeen muxuu ahaa nimanku waa xanaaqayaan waxaan nahay xukuumadda waa ansixinay hal keeno halka marka waxa ka cad 80ka xildhibaan iyo ra'iisul wasaarahoodii iyo wasiiradoodii horta inayna kursi u dagaalamayna sharaf Soomaaliyeed iyo qarankii Soomaaliya inay badbaadiyaan ba horta qayb ka muuqata haddana 80ka xildhibaan waa ka badnaayeen rag badan baa fasax noqona 120 baan gaar rag badan baa nooga maqnaa markii arintaas u dhacday sidii baan hawshii u wadnay dee markii arinta aan sameynay waxa na taageeray shacabkii Soomaaliyeed oo dhan baa na taageeray waxaana taageeray urur siyaasadeed xisbi lama oran karo markay xisbiyada waa in baarlamaanku ansixiyaa oo shuruudaha ay soo bixiyaan waxa dalka jira waa urur siyaasadeed waxaan ugu soo biiray bulshadii rayidka ahayd waxaan ugu soo biiray urur siyaasadeed 19 urur oo muxuu ahaa Soomaaliya ka jiray
oo u bogay hanaankii aanu u shaqaynay iyo sida aanu shacabkii Soomaaliyeed indhihiisa u bedelnay caalamkii aanu u bedelnay aanu tusnay inaanu wax bedeli karno waxna burburin karno aan tusnay waxay go'aan ku gaareen bulshadii rayidka iyo muxuu ahaa shacab urur siyaasadeedka 19 inay nala midoobaan oo siyaasadda noola midoobaan oo aanu Soomaaliya wadada ku badbaadino horta sidaas waxa ku dhashay muxuu ahaa maadaasha midnimada iyo dimuqraadiyadda horta ku dhalatay ku abuurantay shir baa la qaatay shirkii markii la isugu tagay 120 xildhibaan oo aanu bayaan soo saarnay urur siyaasadeed 19 bulshadii rayidka oo shacabka Soomaaliyeed oo ka kooban waxaanu go'aan ku gaarnay aanu cod aqaliyadna ku siinay gudoomiyaha maadaasha iyo midnimada noqday Cabdulle Sheekh inuu noqdaan horta aanu go'aan horta ku gaarnay aanu siinay marka maadaasha waxa weeye wadaday u taagantahay waxa weeye kow ilaalinta dastuurka lagu tuntay inay horta dastuurkii shacabka Soomaaliyeed ku aaminay horta inay ilaaliso oo dastuurka ilaaliso inay ilaaliyaan labo in la badbaadiyo qarankii Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed in la badbaadiyo karaamadiisa dib loo soo celiyo oo la badbaadiyo in Soomaaliya laga saaro tafaraaruqa iyo dhibaatada in muxuu ahaa 2016 maadaashu ay u diyaar garowdo sidii ay hoggaanka Soomaaliya inta u qabato ay u gaarsiin lahayd xilli kasta oo la doorto xukuumadii timaada ay u gaarsiin lahayd horumar siyaasadeed isla markaana ay shacabka Soomaaliyeed u gaarsiin lahayd qof walba asagoo codkiisa xor ah inuu codkiisa xornimo ku helo baarlamaanka soo doonto madaxweynaha soo doorto halkaas horta maadaashu ay u taagan tahay maadaashu uma taagnana inay Soomaali burburiso oo dhibaatayso uma taagna uma ay taagna inay laaluush iyo corruption samayso waxay u taagan tahay Soomaaliya inay sharafteeda dib u soo celiso midna waa idin sheegaya niman yahow nin iska orda kaliya meel orda iyo muxuu ahaa nin yiraahdo anaa magaciisa orda wax uu qabanaya lama arko Soomaaliya maanta caalamku wuxuu taageersanayaa inuu wadamo badan baan soo arkay shacab Soomaaliyeed 8 dal oo Yurub ah soo maray qof walba maanta wuxuu diyaar u yahay ama dhaqaalaha ku bixiyo ama muxuu ahaa taageeraha ku bixiyo meel kasto aan tago sida la iiso dhaweynay waad ogeydeen ayadoo loo gogol xaarayo Yurub in hadda markii soo qaad dhamaada ra'iisul wasaaruhu Yurub tago oo aad arki doontaan sida Yurub looga soo dhaweyn doono ama caalamka u soo dhaweyn doono marka maadaashu waxay sameynaysaa isbedel siyaasadeed oo dhab ah oo aan Soomaaliya lagu aqoon bay sameynaysaa xildhibaanada 80ka qabiil ma reebel ma qabiil isugu imaan in adeer isugu imaanin muxuu ahaa 19 urur siyaasadeed oo nagu soo biiray qabiil naguma soo biirin intaas waxay isugu timid mabda siyaasadeed oo Soomaaliya lagu badbaadinayo isugu timid wax kale isugu imaanin waxay ka midaysan yihiin urur siyaasadeedkaas iyo bulshada rayidka iyo xildhibaanada badbaado qaran iyo xukuumadii ra'iisul wasaare Cabdulle asagoo 19 oo 18 wasiiradiisa iyo xukuumadiisa iyo asaga iyo 19 kaas oo xukuumadda ka tirsan waxay u istaagi doonaan badbaado Soomaaliyeed u istaagayaan uma istaagayaan umana socdaan maaragtay danaysi iyo shakhsiyad uma istaagayaan maxaa yeelay qofkii damiir la oo Soomaaliyeed meesha maanta ku socdo dareemi kara mana dhici doonto من انت halka inuu istaaga yiraahdo muxuu ahaa shakhsi baan tunka saaranaya shakhsi aan difaac ma dhici doonto oo waxyaabaha maadaasho ay u diyaar garowday way ma dhici doonto dastuur lagu tuman doono ma dhici doonto cadaalad darro dalka lagu sameyn doono ma dhici karto ma imaan doonto ana iri dalka waa ka dhamaatay ra'iisul wasaare dambe yimaado ninku degdeg kara lama arko dabaan ku eegsan horta laga ma leexdo dabka ku eelkiisa waxa la keenay ra'iisul wasaare Cabdulle ba hadda lagu ogaaday iyo wixii meesha ka dhacay marka isbedelkaas siyaasadeed oo maadaashu wado oo ra'iisul wasaaruhu hormood u yahay waxaan rabaa shacab Soomaaliyeed meel aad joogtaan inaad taageertaan oo aad cod ku taageertaan oo aad ku taageertaan muxuu ahaa waddan Soomaaliyeed aad ku taageertaan haddii la yiri muxuu ahaa waa inaad dhaqaale bixisaan waa inaad bixisaan dhaqaaluhu ma ahan in la sheegayaa maaragtay inuu codka ku doonayo cod ku raasanayo sidii maadaasha lagu hirgelin lahaa oo caalamka lagu dhisi lahaa oo muxuu ahaa ayadu horumar ku gaari lahayd horta dhaqaalaha la bixinayo annagu waxaan rabnaa maadaasha waxay diyaar u tahay in ayna corruption ku imaanin oo ayna laaluush muxuu ahaa baarlamaan ku bixinin maxaa yeelay hadaa qofku laaluush haduu ku bixiyo codkayga laaluush ku bixiyo dadar biri maxaa ninkaas madaxweyne ma noqonaya soo asaga iska daba laaban maayo
marka annagu waxaan rabnaa inaanu shacabka Soomaaliyeed u muujino inaanna corruption ku socon dhibaatana aanna ku socon inaan qof dambe uu soo oran ana aanu meesha ka saarno tan waa tii Soomaaliya maaragtay caalamkeedii ku soo celin lahayd oo shacabkii Soomaaliyeed ku soo celin lahayd waxaana maadaashu idinka ballan qaadaysaa anigu intaan hormood ku hay idinka ballan qaadaysaa horta dalka waxa ku jirayna qarinin inaan maalin kasta sharciga ku tumanin sharciga nina kama weyna inaan sharciga ku tuman in maadaashu haddii ay mustaqbalka Soomaaliya ay ku guuleysato in la sameyn doono guddiga la yiraahdo muxuu ahaa la dagaalanka corruption inay sameyn doonto horta mid waa idin dhaafay barigii markii arrintaanu socotay oo hadee aanu ka horrimid xukuumaddii aanu ka horrimid oo aanu diidnay oo maaragtay in wasiirada la keeno si tribka hore aan loo sameyn oo la oran muxuu ahaa barkuwan hala laalush guddi baan iska saarnay guddiga ilaalinta corruption kale yaanu ilaa baan sameyn oo bal cidda lacag bixisa maanta cidda xinayaan shal hadaad bixisan bal maanta lacag bixiyo wallahi waa lagu dhici waayay hal shay in la baxsho waa lagu dhici waayay يا واحد أركض نمان عن قبل اللي بحيي ماشي اللي كان صماها ماشي أنا أخش لسان واحد وبحس الماشي اللي بحيي صماها دي اللي بحيي دي انطلق قطان صومالي شربت لك سعودي ويستاج أو تاجر ما ذا شيء من ماذا تاجر صومالي رشك سقيسة والله إن تيهدر هم تدين شيء جيه أما ننكلجها أرضه أو مالها أرضه أو مجيس أرضه واحد أركض الأرض هي مال عقفين هي مال عدلها ولفتك وهي لكن الشعب كالصومالي تقوليه هذا تكتان meel kasta Soomaaliya ha joog boqolkiiba 99 waxay taageereen maadaashay taageereen cod buuxana ku taageereen waad ogeedeen gudaha Soomaaliya wixii banaanbax ka dhacay waad ogeedeen marka aad waxaan kale ugu mahadcelinayaa sidaad muxuu ahaa gudoomiyaha muxuu ahaa ahna ra'iisul wasaare hore Cabdulla Shamsa u soo dhaweyseen horta ayana aad baa idin ka mahadcelinayaa maxaa yeelay waa in damiirku shaqeeyo horta ma shaqeysaa hadaladiisina kulay waa dhageysatay meeshu ka hadlayay annagu marka waxaan rabnaa warkii oo kooban aan soo gabagabeeyo shacab Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan rajada kaliya oo Soomaaliya ay qabto oo maanta caalamkii fiirinayo waa maadaasha weeye haddaad idinku taageertaan oo qayb ka geysataan oo xafiisyada halkan laga furay iyo dadka looga tagay halkan aad muxuu ahaa meeshana ka furtaan oo dalalkan maanta aad joogtaan qof walba u tagay war dalkayga waa burburay dhibaataan ugu dhacday maanta muxuu ahaa waxaa noo soo baxay maadaal siyaasadeed oo Soomaaliya bedelaysa haddaad awal maqli jirteen muxuu ahaa wax nasiiya ama na taageera war maanta maadaal siyaasadeed oo Soomaaliya badbaadinaysa haysanaay wax noo qabta dhahayo kaay maxaad noo qaban kartaan dhahayo waa idin taageeraya barkee wari lama arag dad Soomaaliyeed leh war waxbaan haysanaay waxbaan wadnaay waxaan ugu taageera na gacan qabta wari mayna arag runtii dalalka Yurub aan soo maray arrinta waxyaabaha aan muxuu ahaa dalalkii aan madaxda la kulmayay waxay nagu dhiirigelinayaan waxa waa markii koobaad aanu aragno dad Soomaaliyeed oo isbedel baanu sameynay isbedelkan aanu sameynay nagu garab gala oo maaragtay maxaana kaalmeeya waa koob bay yiraahdeen koob waan ballan qaadeen madaxda Yurub aan soo arkay inay maadaasha taageeraan oo wax allaale iyo wixii ay uga baahan yihiin ay la taageeraan way soo ballan qaadeen idinkana dalalkan rab inaad arrinta ka qabataan marka arrinta maadaasha horta arrinteedu waa halkaas sansaankeedu halkaas u socdaa arrintaas in la taageero oo Soomaaliland loo taageero qabiil cid lagu taageerayo ma jiraan qabiil ha ku taageerin annagu qabiil ma nihin Usmaana reer Usmaana imaan dad Soomaaliyeed oo muxuu ahaa urur siyaasiyeed 19 urur wad garanaysaa intay tirsood yihiin xukuumaddii ra'iisul wasaare Cabdiwali 19 wasiir baa nagala socota iyo asagoo ra'iisul wasaarehoodii annagoo qornay 120 xildhibaan oo Soomaali ka kooban oo ka danqay dadka Soomaaliyeed baan intaasaan isu nimid isugmaana imaan aad wax burburiseen oo wax dhibaataysan Soomaaliya meeshii ku socotaan u jeednaa manala badbaadinaysaan shacab Soomaaliyeed manala badbaadinaysaan hadday daacad uga tahay maadaasha maanta istaaga oo garab bay idinka baanto